geelu wuxuu ka mid yahay afarta maaladuun ee Soomaalidu dhaqato haysashadoodana ku hamiyi jireen waqtiyadii hore waxa uu ahaa halbeeg ay ku cabiri jireen hodantinimada qofka iyo hantidiisa ninkii kadan geela fafsadaana waxa uu agtooda ka ahaa mid loo soo joogsado oo arrinkiisa la aqbalo waxay u arkayeen in ninkii geel lihi si fudud u gashi bixi karo inkastoo xilliyadan dambe la moodo in xiisihii loo hayay dhaqashada geela uu sii yaraanayo halka dadka qaar ay casriyeeyeen dhaqashada geela oo inta xiriyo waaweyn iyo beero lagu hayo loo sameeyey caanihiisa looga faa'iideysto hab ganacsi ahaana arrintaasi oo dad badani soo dhaweeyeen geela ayaa ah noole aad u adkaysi badan waana sababtaas waxa Soomaalida jeclaysiiyay dhaqashadiisa maadaama dhulka Soomaalidu yahay dhul oomana ah balse hodan ku ah daaqsinta oo adkaysiga biyo la'aanta iyo socodka dheer ee uu dhulal kala fog oo baad iyo biyo laga gaari karo ayaa ka mid ah wanaagyada uu geelu meesiyada kala dheer yahay sidoo kale geela ayaa daboolay baahidii nololeed ee dadkeena sida caanaha hilibka iyo rarkaba waxtarkaasi oo geela ka dhigay marka Soomaalida agteeda la joogo waxa dunida ugu mudan toddobaadkan waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee geela adduunka taasoo sanad kasta la xuso 22 bisha Juun maalintan oo la aasaasay sanadkii 2009 waxa la qabtaa kulamo waaweyn oo lagaga hadlayay geela iyo faa'iidooyinkiisa Dr. Ibrahim Maxamed Kaahin oo lagu naanayso Dr. Duxul waa dhakhtar xoolaad oo wax ka barta dalka Uganda isagoo ku sugan magaalada Kampala ee dalkaasi waxa uu iga warramay geela waxtarkiisa iyo xaaladaha uu xilligan ku sugan yahay ugu horreyntiina waxaan weydiiyey inuu xog kooban inaga siiyo geela iyo waxa uu yahay walaal mahadsan tahay Cabdicasiis Caydid Yamani waa dhawahay walaal geel walaal wuxuu ka mid yahay waa mid ka mid ah meesiyada Soomaalidu dhaqato kaasoo laga helo adduunyada qaaradaha Afrika Aasiya iyo Ameerika guud ahaan geela deegaamada waxa laga helaa deegaamada saxaraha ama saxar xigeenka isagoo Ilaahay sidoo uu abuuray u diyaarsan inuu ku noolaado nolosha dalsan ee saxaraha ama wadamada saxaraha ku xigeenka ee biyuhu ku yaryihiin guud ahaan geela saddex nooc baa loo qaybiyaa hal kurus leh laba kurus leh iyo geel bilaa kurusa oo gaagaaban geela yar gaagaaban kaasoo laga helo Southern koonfurta Ameerika sidka geelu waxa uu gaaraa 12 ilaa 13 bilood waxaana ku qaan gaaraa 4 sano geelu wuxuu ka mid yahay xayawaanada ama xoolaha ama nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay isagoo ku dhaadanaya afalaa yanduruuna ila al-ibil kayfa khulaq abuurkiisa iyo sidoo Allah u abuuray subhanahu wa ta'ala ugu dambeyntii geelu wuxuu ka mid yahay meesiyada cadkooda iyo caanahooda waa in manaafacadsano kuwaasoo aad iyo aad ugu muhiim ah aanay u dareensan inay u ogyihiin ummadda Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaalida khamiistii toddobaadkii hore oo ku beegnayd 22 bisha Juun waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee geela adduunka haddaba maalintan sidee ayay ku timi maxaa la qabtaa maalinta geela adduunka oo laga xusay ama 22 Juun waxa la aasaasay 2009 ama 2009 oo imika laga joogo 14 sano waxa aasaasay nin loo jiray Cabdirasaaq Karakar waxaynu ognahay isagoo u aasaasay in maalinta loo asteeyo maalinta caalamiga ee geela adduunka waxaynu ognahay adduunyada maanta xoolaha ama noocyada kala duwan ee xayawaanaadka hay'adaha iyo ururada daneeya ama u dooda xukuumadda xayawaanka waxay u sameeyaan maalmo gooniya si loo xasuusto xayawaanka maalinta waxyaabaha la sameeyo maalintan geela adduunka waxa kamid ah ama ururada u dooda ay asteeyeen in la sameeyo in maalinta la qabto kulamo lagaga hadlayo faa'iidooyinka cunto dhaqan ee uu leeyahay geelu dadka gaar ahaan bulshooyinka ku nool wadamada ka hooseeya saxaraha ama dhulka saxaraha sida Khaliijka kale iyo qaybo kamid ah wadamada Geeska Afrika geela ayaa sida aynu hore u soo sheegnay dadkeena agtooda qaali ka haddaba maxaa uu yahay xiriirka ka dhaxeeya geela iyo Soomaalida waa kan mar kale Dr. Ibrahim Duxul oo inoo sharaxa xiriir nooceeya ka dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo geela waxaynu ognahay geelu Soomaalida waxa ka dhaxeeya xiriir dhaqan iyo dhaqaale maadaama saddexdii qarniyo ugu dambeeyay ama qarniyaal aad u fara badan soo dhaqanayeen ay manaafacaadsanayeen waxay ka helaan caano badan oo ay ka helin meesiyada kale sida lo'da iyo ariga waxay ka helaan hilib fara badan waxa kale ku qabaan raasha culus oo ah inay isticmaalaan oo reer guraaga iyo inay alaab markay reeruhu guurayaan ay u isticmaalaan meel kala fog reerku markay ama dhaanka biyaha lagu soo dhaansado ama waxa la yahay wixii culus oo dhan in lagu qaato geelu
wuxuu ka mid yahay ama uu kaalin weyn ugu jiraa dhammaan qowmiyadda Soomaalida kuwaasoo waayihii horena iyo imakaba magta iyo yaradka iyo wax kasta ku kala qaata waxaa jira abwaano fara badan oo qowmiyadda Soomaalida ka mid ah kuwaasoo aad u amaaray geela kuwaasoo maahmaha iyo murti fara badan iyo gabayo iyo suugaan ka sameeyay waxyaabaha kuwooda ugu mudnaa waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray Cabdigahayd waxaa ka mid ah Cumar Australia oo gabay aad u qiimo badan ka tiriyay tixiisa gabayga oo aan ka xasuusto dhibaato iyo aad oo qaba dhaxanta jiilaalka dhowr caana laga soo liso yara dhanaanaaday nin dhadhamiye waa garanayaa dhulay qaboojaane goorta dantaaba jirkaba dhididku qooyay ragga laxaha sii dhowrayo dhaqasha waa geel ugu dambeyn maadaama uu geelu ka mid yahay xoolaha ugu mudan ee aynu bulsho ahaan dhaqanno muxuu xuska maalinta geela adduunku inooga dhigan yahay sidii ayay tahay in looga faa'iideysto waa kan Dr. Ibrahim Maxamed Kaahin maalintani walaal Cabdicasiiso dadka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay haddii ay ka faa'iideysanayaan way maalin loo baahan yahay in wax la iska weydiiyo geela maadaama aynu ognahay in qarniyo aad u fara badan 3 qarniyo ugu dambeeyay ama 4 qarniyo ugu dambeeyay Soomaalidu inay noloshooda aad ugu taxneed geelu waa maalin looga faa'iideysan karo in la sameeyo cilmi baarisyo lagu ogaanayo ama lagu horumarinayo waxtarka geela iyo manfaciisa siyaabaha kala duwan ee looga faa'iideysanayo hababka loo dhaqanayo in la sameeyo daraasadooyin ku saabsan noocyada dhaqashada ee geela kuwa ugu wanaagsan in la sameyn karo waxyaabo production ama wax soo saar oo laga sameyn karo geela cadkiisa iyo caanihiisa ama haragiisa in geela la dhoofin karo oo suuqyo caalami ah loo heli karo kadib marka loo dhaqdo si aad iyo aad u wanaagsan waxyaabahaas oo dhan waxay noqon karaan waxyaabo maalintan looga faa'iideysan karo in la qabto madalo lagu koobayo dhammaan suugaanta dadka Afrikaanka ama Afmaalka ay ka tiriyeen geela maamaha geela iyadoo maalinta loo sameynayo xus iyo xasuus gaar ah oo lagu maamuusayo geela oo ah noola ameesi aad iyo aad u cajiib badan kaasoo bulshada Soomaaliyeed ay cadkiisa iyo caanihiisa iyo gaadistiisa manfaacsan